دروس رمضانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق الله العظيم. الحمد لله. إلهي baa mahadle walaalayaal na soo gaarsiiyey bishii barakada laheeday oo bilaha ugu fadliga badneeday oo ramadaan aheeday, bishii aheeday shahrullaahi, bishii ilaahay aheeday, oo markaasi dadka muslimiinta u ah fursad weyn oo qaaliya oo sanadkiiba mar soo marta. taasaan ilaahay subxaanahu wa tacaala uga mahad celinaynaa. waxaana leenahay bisha ramadaan ay soo dhowaaw ayaanu leenahay. waxaana ku soo dhoweyhaynaa farxad iyo raynrayn ayaanu ku soo dhoweyhaynaa. waxaa dhici karta dad badan oo bishii hore ramadaan joogay inaysan maanta noolayn oo aysan fursadan aysan cumrigoodu u saamixin inay soo gaaraan. waxaanu leenahay bisha ramadaan ay soo dhowaaw. bishaan haddii alla yidhaahdo waxaan uga faa'iidaysan doonaa duruus oo markaasi mutataabica oo israac raacsan oo la yidhaahdo duruus ramadaaniya la dhaho. waxay noo socon doontaa haddii alla yidhaahdo bisha soddonkeeda ayay noo soconaysaa, annagoo inshaa allahu tacaalaa ku soo qaadan doona bisha cadadkeedu inta uu la eg yahay soddonka maalmood oo ramadaan uu haatan nooga bilaabanayo ilaa uu ka dhammaado. maalin walba munaasabada ay leedahay ayaanu maaragtay duruustaas ramadaaniyada aynu ku soo qaadan doonaa. waxaana ilaahay ka rajayhaynaa annagoo ilaahay muxtasibiin ogahoo ilaahay ajriga dalbayna, dadka muslimiinta ah caalamka meel kastoy ka joogaan inay ayaguna nala dhegaystaan oo ay ka faa'iidaystaan ayaanu maaragtay ilaahay ka rajayhaynaa. iyo bishaan barakaysan khayrka ku jira oo aan la soo koobi karin in ilaahay naga waafajiyo. maxaa yeele bishaanu inaan la ogaa karin waxa ku sugan oo wax caqliga basharka ka weyn ay tahay, oo keliyaba hataa waxa weeye bacdi ayada ka mida fadaa'isha lagu helaayo rabbulciza mooyaane cid kale aysan fahmi karin. sida haddii alla yidhaahda duruusteenna soo socota inshaa allahu tacaala noogu imaan doonta. waa tii rasuulkeenu uu dhahay calayhi salaatu wasalaam: low taclamu ummatii maa fii ramadaan latamanad an takuuna asanatu kulluhaa ramadaan. ummaddayda hadday ogaa laheeday waxa bisha ramadaan ku jira oo fadaa'il ah oo khayraad ah, waxay jeclaa lahaayeen oy tamani lahaayeen bisha ramadaan dhammaanteedba inay weligeed iska jirto oo sanadka dhammaantiisba inuu ramadaan iska ahaado. hadda waxaa laga yaabaa bacli annaga naga mid a markii bisha ramadaan la soo gaaro inuu cabsi oo muujiyo ama culays uu ku dhaco oo is yidhaahdo bishaan ramadaan baa timide saad u soomi doontaa, xaggeed wax ka keeni doontaa ou isleeyahay. qofkaas marka qof niyadiisu niyo qaasira ay tahay oo danigiisu uu xun yahay weeye. allah subxaanahu wa tacaala xadiiskii xadiisulqudsiga ahi waa tou dhahay: anaa cinda danni cabdii bi, aniga addoonkayga mayhiisa agtiisa ayaan ahay. oo macnaha waxaa weeye addoonkaygu waxuu iga malaysto ayaan siinayaa. haddii niyo weyn aad bishaan la timaado oo aad ku qaabisho oo aad markaasi istiraahdo wax kasta oo waxa weeye cusriya bishaan bay kaaga harayaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kaaga qaadayaa. wax kastoo derajaad ah, wax kastoo maqaamaad ah, wax kastoo xawaa'ij ah bishaan ramadaan ayaad ku helaysaa barakadeeda
hadduu qofku is yidhaahdo ee si farxad le uu ku qaabilo waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala u yeelayaa dannigiisaas wanaagsan. laakiin danni xun haddii waxaa weeye qofku uu ku qaabilo dannigaas ayaa loo ahaysiinayaa. marka waxaa la rabaa inaan ilaahay danni wanaagsan aan u samayno oo rugniga kan weyn oo arkaanul islaam ka mida oo 5 ah inaan maaragtay ku gudanno sidii ilaahay uu tala galay, si farxad leh aanu ku soo dhoweyno oo aan markaasi soo dhoweyno bishatan farxadna aanu ku soo dhoweyno. marka ay naga tegaysane aan dhahna waanu ka xunnahayo ramadaanay inaad naga baxdo waa ka murugsannahay, sida asxaabta nabigeenna iyo dadkii ahlullaahidaahi ay dhihi jireen bisha ramadaan, inaan sidaas nidhaahdo ayaanu kaga baahan yahay. fursad kasta oo waxa weeye naga maqneeday oo waxa weeye iyo xaajo kasta oo naga cusleeday, sida inshaa allahu tacaala duruuseenna aanu ku qaadan doono, waxaanu maaragtay ku helaynaa bishaan barakaysan oo ramadaan ayaanu ku helaynaa. marka hadda waxa weeye darsigeennan ugu horeeya waxaanu ku soo qaadanaynaa fardiyatu soomi ramadaan, bisha ramadaan in la soomo faral inay tahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ummaddiisa ummatulmuxameda ilaahay uu ku faral yeelay ayaanu maaragtay ku soo qaadanaynaa. waa marka darsigeenni koobaad ayaa sidaas ahaanaya. hadda waxa weeye ramadaan goormaa la faral yeelay? ramadaan waxa weeye horta marka ugu horeysa wuxuu ka mid yahay bishan oo la soomo soonka, sida hadda aayadda qur-aanka aynu ku soo qaadanayno oo ilaahay noo sheegi doono. waxa weeye soomku wuxuu ka mid yahay sharaa'icdii qadiimka ahayd uu ka mid yahay, huwa min asharaa'ici alqadiimati, sharaa'icda horeysa uu ka mid yahay. ummadii hore waa soomi jireen, laakiin xagga kayfiyada waanu ku kala duwannahay. marka annaga bisha ramadaan inaanu soonno kayfiyadaana aan u soonno wax annaga ummatulmuxameda nagu khaasa weeye. marka waxaa la faral yeelay sanadkii 2 oo hijriyada ayaa la faral yeelay bishii shacbaan. rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam 13 sano markii maka uu joogay oo kufaarta uu digaayey oo waxa weeye dacwada u sheegaayey, shirkiga uga digaayey oo ay soo degaayeen suuradihii makiga ahay, intaas markii la kari waayey ilaahay rasuulkiisa waxa u idmay inuu madiine u hijroodo. madiine markii uu tegey sanadkii 2 oo hijriyada markii la joogo ayaa la faral yeelay, soonka la faral yeelay. sidaas ayaana maaragtay raajax. marka hadda ilaahay subxaanahu wa tacaala wax kasta oo alle uu nagu faral yeelay oo inaanu samayno cibaada ilaahay uu noo jideeyey, waxa weeye wax masaalixdeennu ay ku jirto. xikmada soonka waxaa ka mid ah sixatuljismi, jirka ayaa ku caafimaadaya. waad aragteen hadda caafimaadku nolosha qaaliga ahoo xayawaanku ku nool yahay midda ugu horeysa weeye. mar haddii aan caafimaad qofku uusan haysanin noloshiisu wax qiimaa kuma fadhido. marka midda ugu horeysa oo soonka laga helaayo waxa weeye waa sixatuljismi, jirku inuu ku caafimaado. waxaa markaas laga helayaa soonka kasru shahwa waxaa laga helayaa kasru nafsi wa shahawaad, nafta in la jebiyo oo kibirka iyo isla weyninka laga jebiyo iyo shahwada in la jebiyo ayaa waxa weeye xikmada soonka ka mida. wa qahri shaydaan, shaydaanka la qahro ayaa ka mid a. maxaa yeele shaydaanku ummadda waxuu ku yahay cadowgeedu waaye. ilaahay waa tow dhahay ina shaydaana lakum caduwun fatakhiduuhu caduwa. qofku haddii waxa weeye amarka ilaahay uu fartoomo oo cibaado kasta uu sameeyo oo ramadaankii hadda maaragtay aanu haatan joogno oo bishii ramadaan aanu soomayno soon aanu la imaanayno, soonkaas waxa weeye shaydaanka waa qahraya, waa dulaynayaa. maxaa yeele shaydaanku wuxuu jecel yahay insaanka waxuu markaasi ku halaajiyo oo macaasi ugu rido oo waxa weeye beri qiyaamo waxa weeye uu halaajiyo naarta ugu rido ayuu doonayaa. qofku marka haddii uu soomo shaydaankii markaasi niyo xumaa ku dhacaysa, qof shaydaankii qahray oo ka xoog badiyey oo ka awood badiyey ayuu noqonayaa. waxaa kaloo xikmada ka mid a soonka diibulfami cinda allaahi tacaala,
qofka waxa weeye afkiisu inuu diib noqdo oo afkiisu uu wanaagsanaado xadiis waxaanu ku degi doonaa uu leeyahay wala khafuufu fami saa'imi adyabu cinda allaahi min riixil miski qofka soonkaa xayaabada ama dacarta afkiisa fuulaysa waxay ka caraf badan tahay ilaahay agtiisa riixda miskiga wax carfa wax uu caraf badan weeye ilaahay agtiisa saasay ka caraf badan tahay oo markii waxa weeye dadku ay riixdaasu ay sankooda ku dhacdo way kahanayaan laakiin ilaahay agtiisa riixulmiski ayay ka caraf badan tahay marka waxa weeye afkiisi cuntadii markii uu ka soomo cabitaankii uu ka soomo kalaamkii markaasi faaxishkaahay uu ka soomo waxa weeye afkiisi baa diib noqonaya oo af oo wanaagsanaada ayuu noqonayaa maxaa yeele sidaas ayaa waxaa weeye xadiiskaas ku soo arooray soonka xigmada loo soomaayo iyo faa'iidadiisa waxaa ka mid a safaa'u lqalbi qofka qalbigiisa saafi u noqonaya waxyaabihii xumaay xaqdigii iyo xasadkii amraasha oo qalbiyada ah waa uu ka mid yahay xasadku uu ka mid yahay xaqdigu uu ka mid yahay waxyaabo badan oo dulliyaad ay ka mid yihiin ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbigiisa u ka tiraya markaas waxaa weeye qalbi saafiya ayuu yeelanayaa qofka saa'imka waxaa soonka markaa faa'iidadiisa ka mid a ama xigmada loo soomaayo gufraanu dunuub dembigaa lagu dhaafaya waxa weeye qofka markaasi bisha ramadaan soomaayo xadiis waxaanu ku tegi doonaa maaragtay wadabuhu makfuurun qofka waxa weeye saa'imkaa dembigiisu makfuur waayo waa loo dhaafaya dembi dhaaf ayuu ka helayaa wuxuu ka helayaa oo kaleentood cadiimu lajri ajir weyn ayuu ka helayaa ajirka ramadaanka laga helaayo sidaanu duruuseenna ku qaadanayno wax la soo koobi kara maaha maxaa yeele xadiis waxaan qaadan doonaa kulu camali ibni aadam lah ila soom fa inahu lii wa ana ajzii bihi ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala xadiisulqudsa u dhihi doonaa waxaa laga helayaa soonka oo xigmada loo soomaayo ay ka mid tahay ama faa'iidadiisa culuwulmansilati fi laakhirati aakhiro waxaa weeye derajo saro inuu qofku uu gaaro oo ilaahay subxaanahu wa tacaala soonkaas aclaa faraadiisi iljinaan jannooyinka midda ugu sarrayso oo jannaatulfirdowsa ah ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu geliyo qofka saa'imkaa waxuu haddana helayaa alinsaafu biwasfi lmalaa'ika inuu ku sifoobo sifada malaa'igtu ay ku sifowday malaa'igtu waxaa weeye wax ma cunaan waxna ma cabaan waxna markaa shahwana ma gutaan qofka marka hadduu saa'im yaho maanta sooman yahay waxna ma cunaayo waxna cabi maayo waxna jimaaci maayo macnaha wuxuu ka tegayaa qofku shahwatulbadni wa shahwatulfarji labadaas wuu ka tegayaa marka labadaas markuu ka tago wuxuu yeelanayaa sifadii malaa'igta ayuu yeelanayaa marka waxaad noqonaysaa markaa saa'im tahay qof ku sifoobay sifada malaa'igta ku sifoobay ayaad noqonaysaa waxaa laga helayaa markaasi alqurbu min allaahi jala sha'nuhu aw jala wacalaa ilaahay subxaanahu wa tacaala in loo dhowaado ilaahay raxmaddiisa loo dhowaado ixsaanka markaasi la sameeyo kuwa u waaweyn oo soonku ka mid yahay haddana bisha ramadaan ixsaan badan ayaa layska doonayaa in dadka fuqarada iyo masaakiinta loo sameeyo oo ixsaanku ou ziyaado uu noqdo axaadiista soo socota ayaanu ku qaadan doonaa marka waxa weeye waxaa qofkaanu noqonayaa qof markaasi waxa weeye alqurbu min allaahi jala sha'nuhu ilaahay subxaanahu wa tacaala qof u dhowaaday ixsaanka ugu dhowaaday allana waa tou dhahay ina raxmat allaahi qariibun min almuxsiniin ilaahay raxmaddiisu waxay u dhowdahay dadka muxsiniinta ah hadda marka iyadoo mar walba ilaahay raxmaddiisu dadka muxsiniinta ay u dhowdahay ayaa haddana si khaasa bishaan ramadaan raxmadda ilaahay dadka muxsiniinta ay u dhowdahay bishaan ramadaan waa bishii saddex qaybood ilaahay uu ka dhigay rasuulkeen uu dhahay calayhi salaatu wasalaam ramadaanu awaluhu raxma wa awsaduhu makfira wa aakhiruhu cidqu min annaar ramadaan waxaa weeye awalkiisu waxa weeye raxmad weeye raxmad macnaha raxmadda mar walba ilaahay raxmaddiisa waa la helaa laakiin raxmad oo khaas ah oo gaar ahaaneed ayaa waxaa la helayaa bishaan ramadaanka laakiin yaa helaya waxaa helaya dadka saa'imiinta
dadka ilaahay amarkiisa qaatay dadkaas ayaa ilaahay raxmaddiisa helaya. midka isagoo soomi kara aan soomayn ama kaafirka ah ama munaafiqa ah ama waxa weeye maaragtay aan fiicnayn oo caasiga ah oo bisha ramadaan aan soomaynin raxmaddaas waa dhinac maraysaa. hadday ilaahay raxmaddiisu hadday ku gebto ama ay ku gefto maxaa markaasi faa'iidood haysataa, qof khasaare baad noqonaysaa. markii raxmaddaas la helo, bisha awalkeeda la helo, bisha awsadkeeda tobanka markaasi dhexane waxaa la helayaa makfira min cindi illaahi subxaanahu wa tacaala, ilaahay agtiisa dembi dhaaf laga helo. qofka hadduu raxmad helay, raxmaddii waxaa ka dhashay makfira ka dha dembigiyaa loo dhaaf. hadda qof dembi ilaahay u dhaafo xaggee tegayaa? aakhirkiina midda tobanka ugu dambaysa wa aakhiruhu cidqu min annaar u dha rasuulka calayhi salatu wasalaam. ramadaanka aakhirkiisana naarta ayaa la yska xuraynayaa. darsigeenna koowaad oo ka mid ahay duruusteenna ramadaaniyada intaas ayuu noogu eg yahay. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakatu.